aan hurdaha ayaad u diidnay in dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennaba aan difaacno. walaalayaal waad ogtihiin dalka Soomaaliya 30 sano wuxuu ku jiray dagaal, wuxuu ku jiray civil war, wuxuu ku jiray barakac dal shacabka Soomaaliyeed ayadoo intaas ay ku jiraan ma qaadan karaan, ma yeeli karaan, ma suura gali karto khayraadkoodii iyo khayraadkoodii iyo hanti maguurtadeedii in wadamo oo aan shaqo nagu lahayn inay annaga si fudud loogu gacan geliyo. annagu maanta shidaal noolama soo saari karo, ma awoodno sababtoo ah nooma dhisno waxyaabihii suuragelin lahaa oo dastuur ah ama xdirka maxkamadihii wax noo dhisan ma jiraan. 30 sano dagaal ku jirnay, dalkeen iyo dadkeena waa barakacsan yahay. waddankeenna nin walba oo leadership oo la keeno wuxuu ka soo baxaa Somali diaspora network. annaga xoolaheenna iyo xoogeenna iyo maalkeenna gelina. sidaa darteed annagu dawladda annagu kama soo horjeedno, annaga qarandumis ma nihin, annaga fokuskeena dawlad maaha, laakiin annagu fokuskeena wuxuu yahay inaan dalkeenna aan la xalaashin, inaan xoolaheenna hurtideena qarannimadeenna soomaalinimadeenna inaan aan u istaagno ayaan muhiimkeenna iyo ujeedadeenu tahay. meeshaanu maaha dawlad way